dhacday toddobaadkan oo aad ugu faaftay baraha bulshada ee adduunka oo dhan ayaa saameyn weyn ku yeelatay dhaqanka bulshada Soomaaliyeed kaasi oo ah dhaqan ama dhacday oo aad u xanuun badan kadib markii dalka Turkiga nin jalaato iibiya uu halkaasi ka sameeyay dhacdo xanuun badan oo murugo qof walba oo Soomaaliya ku reebaysa taasi oo gudbinaysa sawir fool xun kadib markii halkaasi ay ciyaar kula dheeleen gabdho Soomaaliya oo ay midi ugu sii darnay dabcan haddaba bulshada Soomaalida oo muddo dheer lagu tixgelinayay gabdhaha Soomaalida inay yihiin kuwo aad iyo aad u xishooda badan oo dhaqankoodu sugan yahay mararka qaarna lagu sheego inay yihiin ama markaasi lagu tilmaamo asxaabo maadaama ay weli xijaabka aad ugu dhagan yihiin marka la isbarbar dhigo tusaale ahaan wixii ka horreeyay 2010 ama 10 sano ka hor xaaladdu maanta sida ay tahay maysan ahayn waxaa si weyn baraha bulshada gaar ahaan TikTok ay saameyn weyn ugu yeelatay dhaqanka Soomaalida kaasi oo marba marka ka dambeysa ay wax walba oo xumaanaya caadi noqonayaan markaan ka hadlayno xumaanta iyo waxa ka dhacay faxishada dalka Turkiga ninka jalaato iibiyaha ah waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa warbaahinta Soomaalida iyo waxa ay ka qortay iyo sida ay uga jawaabtay iyo waxyaabaha ay bulshada u gudbisay haddaba arrinta isweydiinta leh ayaa waxay tahay foolxumada dhaqanka Soomaaliyeed gabdhahaasi sawirka foosha xun laga gudbiyay kadib markii halkaasi uu ku ciyaarsiiyay wiil jalaato iibiye ah oo u dhashay dalka Turkiga dabcan isagu waxaan oo dhan waxa uu ku raadinayaa waxyaabo isaga gaar u ah laakiin waa sharaf darro bulsho weyn oo Soomaaliyeed halkaasina waxa ka dhacay waxyaabo aan dhagahaaga aysan maqli karin ama markaasi aadan ku qanci karin taasi oo ah in halkaasi ay kala yihiin Soomaali arrin foolxumo weyn qof walba ku reebaysa haddii xataa Soomaali lahayn waxba ma isi ahaateen oo arrinku waa ka sahlanaan lahaa sida haatan yahay baraha bulshada ee Soomaalidu ku wada xiriirto ayaa aad la iskula wadaagay waxa uu yahay ninkani warbaahinta Soomaalida ayaa dhinaceeda qortay waxyaabo aan macquul ku ahayn ama munaasib ku ahayn in laga faaloodo waana gulucda sheekada aan u soconay bulshada Soomaalida warbaahinta ay ku xiran tahay ee Soomaaliyeed waxay u gudbisay sheeko ku saabsan ninkan xilliga uu dhashay waxa uu yahay yacni arrin aan loo baahnayn oo aan wax tar u lahayn dadka la rabo in la fahansiiyo maadaama ay warbaahintu tahay madaxa u qaabilsan bulshada in wax u soo gudbiyo kaasi oo majar habaabin kara waxna fahansiin kara halkii uu dulucda sheekada u dhaadhici lahaa iyo waxaan inay yihiin wax dhaqan darro ah oo ku soo kordhay ummadda Soomaalida gaar ahaanna ka soo ifbaxay page-ka TikTok ay tahay inay warbaahintu sidaas u wajahdo waxa la wajahay ninkan halka ku dhashay cidda uu yahay waxyaabo ka shaqeeyo waxa uu arrinkan yacni arrin aadan qaadan karin ama aadan xamili karin warbaahin waaweyn oo magac ku dhaxlay bulshada Soomaaliyeed inay arrinkaas ka hadlaan halkii aan ka rabnay inay ka hadasho dhaqan xumada iyo faxishada halkaas ka soo socota inay saameyn ku yeelan doonaan gabdhaha kale ee Soomaalida barihii ugu dambeeyay oo dhan ama shantii ugu dambeysay ama inta TikTok haatan haysatoba baraha bulshada caalamka waxay saameyn gaar ah ku yeelatay gabdhaha Soomaalida dabcan dadka qurba joogta ah ee hore qurbaha u tagay ama 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor ama 30 sano ee dalku burbursanaa ka hor dadkaasi dhaqankooda iyo xishoodkooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda iyo Soomaalinimadooda aad iyo aad ay ugu dhagan yihiin balse kuwa yacni haatan faraha laga gubtay waa wixii tagay 5 sano kadib yacni xataa wadamadaas galbeedka maahan Turkiga oo kale wadamada dhow in yacni xataa wadamo muslima ay arrimahaas ka jiraan waa arrimo faxisha oo foolxumo badan oo aan cidna u dulqaadan karin gabdhaha Soomaalida muddo dheer waxaa lagu tixgelinayay xishoodkooda iyo xushmadda ay leeyihiin wayna kaga socnaayeen xataa bulshooyinka kale ee Islaamka ah taasi oo xurmo siinaysay gabdhaha Soomaalida in lagu soo hirto oo yacni ay dadka kale ee muslimiintu ka fahmaan dad lagu dayan karo laakiin haatan waxa halkan ka socda barnaamij yacni hay daawanayaan malaayiin qof Soomaali yacni gabadh iibinaysa jidhkeeda yacni ma maqli jirtay qof ka ganacsada jidhkiisa gabadh ka ganacsanaysa jidhkeeda yacni ma rabna inaan kusii dheeraano laakiin waxaan rabnaa inaan ummadeena fahansiino waxaan inaysan ahayn wax wanaagsan oo yacni bulsho balfiiri qoomiyadii hore ama dadyowgii hore
sida xadaaradihii la odhan jiray fariska iyo sidoo kale xadaaradihii kale ee markaasi dunida ka jiray sida romaankii. waxyaabaha burburiyey waxaa ka mid a dhaqankoodii oo xumaaday iyo markaasi wax walba oo xumaan ahaa oo wanaag laga dhigay. taasna waxay keentay inay bulshadu si dhib yar ku burburto oo ay wax walba ku burburaan oo wax walba isku bedelaan. taasna ay horseedo wax walba oo xumaana oo la iska dhowro inay caadi noqdaan. haddaba masiibada ugu weyn ee ayna haysataa yaynu moogaanin waa internetka, gaar ahaana tiktok waxay nagu haysaa masiibo weyn oo ay tahay inay cid walba ay si gaar uga faajignaato. arrinkan ka hadlayno wuu dareemi karaa qof walba oo daawada ka ah tiktok ama isticmaala inay caadi ka yihiin agtiisa. in ay caadi ka yihiin waxay gabadhaasi samaynayso maadaama uu mar walba indhihiisa ay ku soo laalaabtaan waxyaabo noocan oo kale ah. caadi ayay u noqonayaan in waxan uusan la yaabaynin. bulsho badan oo Soomaali ayaa ka falcelisay siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay. dabcan waa ku qasbannahay inaan bulshadeena la wadaagno dareenka xun ee arrinkaasi iyo saameynta ku yeelanayo hablaha kale ee soo koraya. haddaba si aan sharafteena iyo karaamadeena ku leenahay islaamkeena aan ku leenahay adduunka iyo markaasi kaalintaan islaamka ugu jirno aan u sii adkaysano, waa dhinaca hablaha inaan lanaga soo weerarin. waalid walba iyo ehel walba waa inuu si gaara uga warhayo ubadkiisa iyo caruurtiisa waxay ku foogan yihiin. waana halka la rabo in laynaga soo weeraro dhinaca gabadhaha oo wax walba dhaqankeena lagu bedelo. tiktok in badan waan ka hadalnay oo aan kaga hadalnay kanaalkeenan, in badanna waan kasii hadli doonaa in waxaas ay tahay faxish oo ay bulshaduna ka dheeraato. waxaan mar walba ku talinaynaa in waalidku uu aad iyo aad uga warqabo ubadkiisa meel walba ugu sugan yahay, ama qof waxbarasho loo diray oo Turki jooga, ama qof meel kala tegay, ama mid tahriibay, in uu si dhow ula socdo waxa uu sameynayo, kuna waaniyo in wax walba oo dhaqan xumo ah uu ka fogaado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.